السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan idinkugu talagalnay. waa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta Isniin aan idiin soo gudbinayo. taariikhduna waa 3 bisha Agoosto sanadka 2026. qodobada barnaamijka aanu kusoo gudbinayno waxaa ka mid noqon doona dhul gariir saakay ku dhuftay Masar iyo dalal kale oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe. qasaaraha uu ka geystay cabirkiisa intuu la eg yahay sida looga dareemay magaalada Qaahira iyo magaalooyin kale oo Masar ku yaala. tafaasiil ku saabsan wararkii ugu dambeeyay dhul gariirkaas waan idin hayaa. Trump oo sheegay in wada hadallo u bilaabanaya Mareykanka iyo Iiraan oo beenisay inay jiraan wax wada xiriira oo dhex maray Mareykanka iyo Iiraan. qobarada oo ku tilmaantay in halka uu ka jiro isgaadgaad yaase la gaadi doonaa. sheeko la yaab leh ayaan idinkaga hayaa. haddaba qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan xaaladda guud ee Bariga Dhexe ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta Isniina ku soo qaadanaynaa. intaan ku jirnana wixii warar ee soo kordha waan idin la socodsiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastoo dhawaada barnaamijkeena kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada taariikhduna ay tahay 3 bisha 8 ugu horeeyay maanta Isniin aan idiin soo gudbinayo. kusoo qaadanaynaa dhowr warar oo muhiim ah oo ka soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe. qodobada barnaamijka aanu kusoo gudbinayno waxaa ka mid noqon doona gariir ayaa la sheegay Masar iyo dalal kale oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe kale oo ka qasaaraha ka markaystay cabirkiisa intuu la eg yahay sida looga dareemay magaalada Qaahira iyo magaalooyin kale oo Masar ku yaala. tafaasiil ku saabsan wararkii ugu dambeeyay dhul gariirkaas Carabiya ayaa goor dhow qoray warbixin uu leeyahay hadallo u bilaabanaya cabirkiisu yahay Iiraan oo beenisay lagu cabiro dhul gariirada ayaa xiriir oo dhex maray Mareykanka iyo Iiraan. haddaba shacabka sidoo kale Falastiin in halka uu ka jiro Lubnaan iyo Qubrus la gaadi doona. dareemay sida la leeyahay dhul gariirkaas ka dhacay dalka Masar. ku saabsan xaaladda guud ee Bariga Dhexe. wariyaha telefishinka Carabiya ayaa soo sheegaya saakay oo Isniin ahay intaan ku jirnana wixii warar ee soo kordha waan idin la socodsiin. magaalada Qaahira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مركز أصحابي مكسود naga daawanaysa ku nool magaalada Qaahira iyo magaalada Liiraado Aljiza ee dalka Masar. waa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta Isniin aan idiin soo gudbinayo. taariikhduna waa 3 Urdun, Lubnaan iyo Qubrus sanadka 2026. ayaa la sheegay inuu ahaa 5.6 darajada. waxaa ka mid noqon doona cabiro gariir saakay ku dhuftay Masar iyo dalal kale oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe. dhul gariirkan uu dhacay cabirkiisa intuu la eg yahay sida magaalada Qaahira markay ahayd 3 habeenimo. waxaana la sheegay in markaa dhul gariirkaas si weyn uu ruuxay meel in wada hadallo u bilaabanaya. laakiin waxay sheegeen masaaridu inaan la soo sheegin wax khasaara oo weyn oo dhul gariirka inay jiraan wax wada xiriir oo dhex maray Mareykanka iyo Iiraan. qobarada oo ku tilmaantay in halka uu ka jiro isgaadgaad yaase la gaadi doonaa. sheeko la yaab leh ayaan idinkaga hayaa. haddaba qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan xaaladda guud ee Bariga Dhexe ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta Isniina ku soo qaadanaynaa. intaan ku jirnana wixii warar ee soo kordha waan idin la socodsiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan ugu talagalnay. laakiin hadda waxaa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta Isniin haddana marka waxay leeyihiin taariikhduna waa 3 degan magaalada Qaahira iyo magaalada Jiza Liiraado ayaa aad u dareemay. guryaha oo laga soo qaatay dabaqyadii waa laga soo gudbinayno. waxaa ka mid noqon doona dhul gariir saakay ku dhuftay Masar iyo dalal kale oo ku yaala magaalada Qaahira iyo Jiza. qasaaraha uu ka geystay cabirkiisa intuu leeyahay sida looga dareemay magaalada Qaahira iyo magaalooyin kale oo Masar ku yaala. wararkaas ku saabsan tafaasiil ku saabsan wararkii ugu dambeeyay waxay leedahay khasaare weyn oo hadda soo sheegay in wada hadallo u bilaabanaya ku saabsan khasaaraha Mareykanka iyo Iiraan. ma jiraan Iiraan oo beenisay arki doonaa kulli inay jiraan wax wada xiriir oo dhex maray Mareykanka iyo Iiraan oo Soomaaliya inay ka mid yihiin in halka hadda magaalada Qaahira yaase la gaadi doonaa. sheeko la yaab leh ayaan idinkaga hayaa.
haddaba qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan xaaladda guud ee bariga dhexe iyo barnaamijkeena ugu horeeya maanta isniina kusoo qaadanaynaa xaaladda u dhaxaysa Trump wixii warar ee soo kordha waa idinla socodsiin wuxuu ku celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysa adduunka kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada ayaan ku dhufanayn Iiraan waa barnaamijkeena ugu horeeyay maanta isniina aan idiin soo gudbinayo taariikhdu waa 3 bisha bilaabanaya awalna Iiraan way la soo hadasho waxayna tiri qodobada barnaamijka aynu ku soo gudbinayno waxa ka noqon doona dhul gariir saaka ku dhuftay Masar iyo dalal kale oo ku yaala gobolka bariga dhexe haddaba telefishinka Al-Jazeera ayaa wuxuu leeyahay sida looga dareemay magaalada Qaahira wadahadallo lala yeelanayo Iiraan fiidnimada caawa oo isniina madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la hadlayay wariyaasha isagoo saaran diyaaradda madaxtooyada Air Force One waxa uu sheegay maruu ka hadlayay Iiraaniyiinta qaabka wadahadallada waxaan bilaabi doonaa uu yidhi wadahadallo cusub ayaa noo furmi doona Sacuudi in halkaa imaaraadka carabka qatar iyo Iiraan laftirkeeda waxay laga codsadeen ayuu yidhi in la joojiyo weerarkii weynaa ee aan doonaynay inaynu Iiraan ku qaadno waxaan diyaar u nahay ayuu yidhi inaanu weerarno waxaan diyaar u ahayn inaanu weerar ku qaadno Iiraan laakiin waxa uu sheegay waxaana la weydiistay inaynu weerarkaa baajino waxay ahayd inay noqoto weerar oo lagu qaaday Iiraan mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada ugu talagalnay dagaalkii labaad ee adduunka ugu horeeyay waxaan arki doonaa idiin soo gudbinayo taariikhduna waa 3 bisha inta nukleerka Iiraaniyiinta waxaa jira heshiis ku saabsan Mareykanka hurmayno waxaa hadda u socda dhulmaan iyo ku dhuftay Masar iyo dalal kale oo ku yaala gobolka bariga oo ku saabsan barnaamijka nukleerka Iiraan si adag sida looga dareemay magaalada Qaahira iyo inaynu joojino weerarkii weynaa ee aan doonaynay inaynu ku qaadno dhulgariirkaas waa dhanka kale sheegay in markaa in heshiis la gaaro ay muhiim u tahay gobolka wuxuu sheegay inuu kala hadlay boqorka Sacuudiga iyo dhaxal sugaha labadaba xaaladda sida uu ka yeelayo waxayna iga codsadeen ayuu yiri in dad fara badan ay ku dhiman karaan weeraradaas gobolka dhanna uu isla guban karo marka sidaa darteed waxay iga codsadeen inaan weerarka joojiyo waayay ninkii Trump markuu wuxuu leeyahay waa lay tugtuga aniga warniyo waxa weerarina weer xataa Iiraan xataa dadka maaratay i weydiistay inaan weerarkii weynaa ku qaado oo iga tugtugtay ku jirtaa kula warbaasha ninka wariyaasha markay diyaaraddu uu raacayo uu sii wataa uu soo wataa wuxuu rabo isaga sheega marka hadalkiisaas markuu soo baxay ayaa Iiraan waxay soo saartay war ay kaga jawaabayso iyadana nimankan waa isgaadgaadayaan Iiraan iyo Trump waa isbarteen Trump cidda kaliya ee baratay waa Iiraan markuu afka kala qaado mid kale iyaguna afka kala qaadaan oo mid ka weynkiisa soo tuuraan hadduu xabad rido xabaday ku ridaan oday marka waa wareen haddaba markaan tuso jawaabta Iiraan iyaduna ay ka soo saartay hadalka Trump uu jeediyay Iiraan way beenisay inay jiraan wax wada hadala oo ay dhexmaray iyaga iyo Mareykanka inkastoo uu ku adkaysanayo Trump inay wada hadleen haddaba waxaa la sheegayaa Ismaaciil Baqaa'i ninka la yiraahdo oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan in saakayo isniina uu sheegay in dalkiisu xilligan aanu jirin wax wada xaajood u ballansan Mareykanka inuu la yeesho ama kuwa uu la yeeshayba laakiin wuxuu sheegay inay jiraan wada xaajood u socda Iiraan iyo saldanada Cumaan kuwaasoo ay ka wada hadlayaan amniga marinbiyoodka Hormuz maadaama iyaga ay daris yihiin marinbiyoodkana uu ka dhaxeeyo waxa uu si kulul u beeniyay hadallada isxigxigay ee Donald Trump uu ku sheegay in Iiraan ay la hadashay Mareykanka wuxuuna sheegay inaanay taasi dhicin ayna dhici doonin waxaana uu sidoo kale sheegay inaanay Iiraan waxba ka ogeyn wada hadalka uu leeyahay Trump isniinta fiidka ayay dhex marayaan Mareykanka iyo Iiraan ayaa wada yeelanaya uu leeyahay way marka sheekadaas iyadana waa kaas nimanka waxay leeyihiin ninkan warkiisa wax ka jira oo Ilaahay abuurtay ma jiray leeyihiin oo arikaasu wax ka jira male marka qodobka isaguna halkaas ayay kaga gudbayaa warbixinta kale ee barnaamijkeena ku cusub maanta isniina waxa iyana kamid ah
sacuudiga iyo sidaad ogtihiin dhowaan iyo Trump waxay saxiixdeen heshiis amniga lagu ilaalinayo sacuudiga. Trump marka wuxuu leeyahay sacuudiga waxayna yiraahdeen annaga okay anaayo maartay xaalkeenu hadda waa fiican yahay ma ahane waa difaaci leh. sacuudiga ayaa waxay leeyihiin ninkan muxuuna difaaca isagiya sadiyadiisa difaaca weysan maalin walba sheegaya in difaaci cirka uu ka dhamaaday muxuu wax difaaca hadaba sheeko la yaab leh sacuudiga iyo Mareykanka u dhaxaysa ayaa la qoray iyadana aan idin tuso mas'uuliyiin sacuudiga ayaa waxay sheegeen Trump u sheegeen in boqortooyada xaaladeedu ay wanaagsan tahay difaaceeduna ay isku filan tahay oo iyadoo ay isku filan tahay difaacu nafsigeeda. wakaaladda Associated Press ayaa waxay sheegtay mas'uuliyiin sacuudiga inay sheegeen in kulan uu dhex maray maamulka Trump iyo mas'uuliyiin ka socotay dawladda waddanka Saudi Arabia waxay ka wada hadlayeen arinta xaaladda guud waxaana la sheegay in ay sacuudigu sheegeen in iyagu isku filan yihiin hadda oo xaalkoodu uu markaa yahay mid wanaagsan oo wax dhibaato ah hadda ay qabaan aanay jirin. way marka waa arkaysaan marka xaalkaasu isaguna halkaasu baraa sacuudiga waxay leeyihiin warnimo okay ana waa isku filanahay waxbaa la difaacin adinkaaba tiina idin haysataa marka waa la isfahmay adduunkan wax boolo xoofta iyo imaarate booto iyo caga juglayn beena iyo waxaasaa lagu hogaamin jiray adduunka. hadda odagii khaliijka oo dhan muxuu ku soo degaanaa idin ilaalinayo wax uu ilaaliyay ma jira hadda wadan aan jugta laga gelin ma jira. sacuudiga ugu weyn kuwayda ugu yar ee qadar iyo kulli jugta laga geliyay muxuu waardiyay marka wax uu ilaaliyay bal hadda asaga qeylay oo leh waxa iga dhamaaday gantaalihii difaaca hawada iga dhamaaday marka sheekadaas iyadoo halkaas in marka in heshiis la gaaro ay muhiim u tahay waxay ku soo qaado sheegay inuu kala hadlay boqorka sacuudiga iyo dhaxal sugaha labada waxa la yiri waxay xaaladda sida uu ka yeelayo waxayna ka soo baxday dekadaha sacuudiga oo badan dad fara badan ay ku dhiman karaan weeraradaas gobolka dhanna uu isla guban karo marka sidaa darteed waxay iga codsadeen inaan weerarka ka soo bixi karo male. adduunkii marka waxay leeyihiin markuu xataa Iiraan dadka markab i weydiistay inaan weerar waxay ku qaado iga qaar badan shidaal sacuudiga ay wadaan warbaasha likala wariyaasha markay diyaaradu u raacayo wasiirta uu soo wato shiineeska marka shiineeskiisa markuu soo baxay ayaa Iiraan waxay soo saartay war ay kaga jawaabayso iyadana nimankan waa isgaadgaalaya Iiraan ka saaraya badda satellite ma haystayaasi kaliya baratay waa Iiraan waxaan ay ku afka kala qaadaan kale iyaguna afka kala qaadaan mid ka weydiisay oo sacuudi ka soo baxayo baabal mandab marin hadaba markaa Chinees meesha ku feestay Iiraan iyaduna ay ka soo saartay hadalka Trump uu jeediyay. Iiraan way beenisay inay jiraan wax wada hadal oo ay dhexmaray iyaga iyo Mareykanka horta ma soo dhawaato uu ku adkaysanayo Trump inay wada hadleen hataa sacuudiga u socdo soo dhawaaqaya laakiin Chinees sacuudigu tagaa uu ka soo baxay oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan in saakii isniina uu sheegay sheekadaas iyadoo warbixinta aan jirin wax wada xaajo u badan Mareykanka uu la yeeshay laakiin wuxuu sheegay inay jiraan oo Chinees ku leeyahay inay Iiraan iyo saldanada Oman waxaana la sheegay inay ka yimaadeen dekadaha sacuudiga marinbiyoodka Hormuz maadaama iyaga ay daris yihiin marinbiyoodkana uu ka xaniinisa ama ka hadasha arrimaha beeniya hadallada ayaa xigaysay 22 markab ku sheegay in Iiraan ay la hadashay Mareykanka wuxuuna sheegay inay taasi dhici doonin waxaana uu sii lahay sheegay in Iiraan waxay ka soo baxeen dekadaha sacuudiga uu leeyahay xisay isniinta fiidka ay dhexmarayaan Mareykanka Iiraan ayaa wada yeelanaya Augusto oo shalay ahayd inta u dhaxaysay ayay maraakiibta Chineesku ay mareen oo ay ku feesteen baabal mandabaan wax ka jira
oo ilaahay abuurtay kama jiray leeyihiin oo faystaaniya wax ka jira marka qofka isagu isu dejinaya kuwii kale soo qaadanayaan warbixinta kale Chinese faystaaniya ku cusub maanta isniina waxa iyana kale cid kale soo dhawaa karto Sacuudiga tagta mari karta meesha ma jirto wuxuu rabaa Sacuudiga iyo sidaad ogtihiin dhawaan marka warkaas wararka ugu weyn barnaamijka ku soo koray ugu ilaalinaya Sacuudiga kamid yahay haddaba warbixinadaas ayaa ugu weynaa Sacuudiga waxay leeyihiin saaran anaga oo keenayo bariga xaalkeenu hadda waa fiican ma ahan waa daweynayna fadlan la gareey oo share gareey barnaamijka ayaa waxay leeyihiin channelka ka subscribe ka lobin Facebook ka caway inta aan marka kulmayno hadii Allah iyo barnaamijka kale uu ka dhaqmo